Rick wuxuu ugu warmayaa Morgan wixii ku dhacay tan iyo markii uu ka tagay, wuxuuna sheegay inuu helay xaaskiisii Lori iyo wiilkiisii Carol ayna ku biireen koox dad badbaaday ah kuwaas oo ku jiray saaxiibkiisii kii ugu dhalay. Sidoo kale wuxuu uga sheekeynaya wixii ka dhacay Atlanta iyo xarunta la dagaalanka cudurrada. Sidoo kale wuxuu ugu digayaa inuusan weligiis xataa u dhawaan meelahaasi sababtoo ah aad bay u khatar badan yihiin. Markaasi Rick wuxuu sheegayaa isagay kooxdiisa inay u socdaan xero ciidan, taasi oo hore u ahayd xero ay ciidanka lahayn kahor intuusan faafin cudurka. Sidoo kalena wuxuu sheegayaa xeradaas inay tahay xerada ugu amniga badan ee ay ku noolaan karaan. Ugu dambeyn Rick wuxuu ka codsanayaa Morgan in haddii uu maqlay fariintan mar uu qaato wiilkiisa kadibna uu si degdeg ah ku tago xeradaas. Markii uu raadiyaha Rick aad buu u walwalayaa sababtoo ah mar walba ayuu fariin u diri jiray Morgan laakiin weligiis kama uusan helin jawaab. Wuxuuna ka baqay inay waxyeelo gaartay Morgan iyo wiilkiisa. Dhibaatadan waxay ahayd raadiyaha inuu ahaa wadada keliya uu kula xiriiri karo. Sidaa darteed Rick mar walba wuxuu isku dayayaa inuu diro fariin si ay mar ugu soo jawaabaan, isagoona sidoo kale rajeynaya inay soo jawaabayaan maalmaha kamid ah. Rick kooxdiisa waxay bilaabeen safarkii ay ugu socdeen xerada ciidanka, iyagoona rajeynaya badbaado iyo nolol cusub. Marka laga reebo Dre ay galeen waxaa la jiray Douglas, Andres, sidoo kale Carol iyo gabadheeda ee Sophia. Ugu dambeyn Dale oo ahaa qofkii ku daadweyn waa uu la socday. Dhammaantoodna waxay si wada jir ah ugu dhaqaaqeen dhanka iyo xerada. wax dhibaataan markan ma aysan waxay ku sii soconayaan wadada ilaa ay ka gaaraan meel ay yaalaan baabuuro fara badan taasoo ku sigaysa xitaa inay ka xiranto wadada. Kaasi waxay isku dayayaan marna ay ku dhex maraan baabuurtaasi oo sii wataan safarkooda. balse sayb xumo baabuurka dil ay xumaanay markaas waxay ku khasbanaanaan dhammaantoodba inay baabuurka soo degaan. ilaa uu isaga ka hagaajinaya baabuurkiisa. dil baabuurka samaysanaya waxay isku dayayaan inay ka faa'iideystaan iyagoo baabuurta kale meesha yaal barbaaranaya iyagoon ka raadina waxyaabo iyaga anfacaya. markaas waxay ka helayaan biyo, shidaal iyo qalab kale oo fara badan. aad bayna uga farxeen dhammaan waxyaabihii ay heleen. laakiin si lama filaan ah iyadoo aanan jirin wax digniin ah waxay arkaan zombie iyaga kusoo wajahan. markaas ayna si degdeg ah uga osdhoomanaan baabuurta sababtoo ah ma awoodo in la dagaalmaan zombie aad ay u tiro badan yihiin. intii ay isku dayayeen inay isqaraan mid kamid ah kooxda ayaa dhaawacmaya. gacantaynu ka dhaawacmaya mana awoodo inuu dhaqaaqo. wuxuuna arkayaa mid kamid ah zombiyada oo isaga kusoo wajahan kadibna rabo inuu dilo. laakiin Darrell ayaa soo muuqanaya daqiiqadii ugu dambeysay isaga ayaana dilaya zombiga. wuxuuna si degdeg ah usoo qaadaya meydka zombiga wuxuuna dul saaraya Douglas si aysan u dareemin zombiyada kale. markaas uu Darrell isagana meydka dusha iska saaraya isagoona isla habkaas isku qarinaya. zombiyaduna waxay sii wadanayaan safarkooda ilaa waxay ka fogaadaan meesha ayaga joogaan. markaas ay Sophie waxay umaleynaysaa inay bixin zombiyada waxayna bilaabaysaa inay baabuurta ku dhuuminayso hoostiisa ay ka soo baxdo. laakiin lama filaan ay ku noqonaysaa inay weli joogaan meeshaasi laba zombie. markii ay arkaan Sophie waxay isku dayayaan inay ku soo cararaan ayadana way baqaysaa waxayna bilaabaysaa inay ka cararto. carrays keenta ku tala dhankeeda ayagana way ka daba cararayaan zombiyadii. markii ay arkayaan isagana wuxuu bilaabay inuu daba cararo si uu soo badbaadiyo Sophie. wuxuu ku guuleysanaya inuu gaaro gabadha ka hor inta aysan gaarin zombiyada. dhibaatada ayaa waxay tahay zombiyada weli daba orodka ay sii wadaan oo ka maharayaan. sidaas darteed Rick wuxuu go'aansanaya inuu gabadha meel ku qariyo ayagana uu meeshaas ka fogeeyo si uu meeshaas fog ugu soo dilo. markaas kooxda kalena wuxuu ku dhahay halkan ay fariista idinka halkan ka soo dhaqaaqeen geedkan oo sii joog kuwan aniga ayaa soo dildilaya. kaasi uu soo tagay wuxuuna bilaabay zombiyada inuu geesto meel aad iyo aad u fog. dhammaantoodna wuxuu dilayaa mid weliba si degdeg ka dhacaya waxay taa markuu soo laabto Sophia meesha uu kaga tagay ayuu ka waayay wuuna baqayaa markaa. arrintaasna waxay noqonaysaa naxdin aad iyo aad weyn oo ku dhacaysa kooxda oo Darrell, Shane iyo Glenn ayaa u imaanaya Rick si ay ula caabiyaan gabadha raadinteeda. waxay baadigoobayaan maalintii oo dhan laakiin nasiib daro wax raada ma helaan habeenkiina sidaas ayuu ku imaanaya. markaas waxay go'aansanayaan inay ku laabtaan baabuurtooda welibana caab meeshaas ay seexdaan si ay beri u raadiyaan gabadha. Carolna waxay noqonaysaa mid gebi ahaanba burburtay sababtoo ah ma awoodo qaab ay isku celiso waxay weeday gabadheeda. qof walbana wuu imaanaya welibana isagoo isku dayaya inuu dejiyo. wuxuuna ku dhahay gabadhaada way caafimaad qabtaa wayna fiicanaysaa wayna noo imaanaysaa ay isdeji laakiin iyada midaas kama yeelayso. Rick isagana wuxuu dareemayaa dambi wuxuu naftiisa dusha ka saaraya mas'uuliyad deerada iyo waxa ku dhacay gabadha sababtoo ah isaga ayaa kaligeed kaga tagay keenta inkastoo wixii uu sameeyay ay qasab ku ahaayeen maadaama ay ahayd jidkii keliya ay ku badbaadin kareen naftiisii nolosheeda. maalintii xigtayna dhammaantood soo baxaan si ay u soo raadiyaan Sophia. cidna kuma harin baabuurta marka laga reebo Dale, Douglas iyo Andre. waxaan israacaya inta kale ee kooxda iyo Rick ayagoon raadinaya gabadhii Sophia ahayd. Carol wiilkii yar ee Rick wuu la socdaa isagana uu kama uusan harin. waxayna sii wadaan raadinta gabadha waqti dheer kadib wax natiijo ah ma helayaan. markaas Rick wuxuu go'aansanaya raadinteeda inay sii wadaan isaga iyo Shane oo keliya. kooxda kalena ay ku noqdaan wadada kahor intaysan gaarin habeen si aysan noloshooda khatar u gelin. dhammaantood ay ogolaanayaan waxayna raacayaan dhinaca iyo wadada marka laga reebo Carol. aabihiis wuxuu ka codsanaya inuu ogolaado isaga iyo Shane inay la joogaan si ay u wadaan raadinta Sophia. Rickna wuu ku ogolaanaya. kuwa kalena wadada ay ku laabanayaan halka Rick, Shane iyo Carol ay sii wadaan raadinta Sophia. si lama filaanaya waxay ku arkaan deer hortooda taagan. Rickna wuxuu go'aansanaya deerta inuu u daayo wiilkiisa si uu dilo oo u ugaarsado deerta si uuna ugu tababarto inuu naftiisa ku tiirsan. Carol ayaana u dhaqaaqaya deerta si uu u ugaarsado laakiin si lama filaana Carol waxaa ku dhacaysa xabad markaasna dhulka ayuu ku dhacay. aad iyo waxay xunu orday dhankaasi wiilkiisa halka Shane uu raadinaya qofka xabada soo tuuray. rasaas soo tuuray wuxuu ninkan oo lagu magacaabo Otis isagana muusan arkin wiilkan oo meesha taagan kaliya wuxuu u jeeday deerta. laakiin nasiib daro xabadii waxay ka dhex baxday deerta waxayna ka baxday dhinaca kale ilaa ay ka gashay wiilka. markaas waxay isku dayeen inay dhiig baxa joojiyaan kadibna soo qaadeen waxayna geeyeen ninka uu shaqeeyo Otis. ninkaas magaciisa waa Hershel waana dhakhtar xoolaha ah wuxuuna ku nool yahay beerka go'doonsan ama ka fog dunida isagoona la nool labadiis gabdhood oo magacadoodu yahay Maggie iyo Beth. wuxuu imaanaya guriga Hershel isagoo gacanta ku sida wiilkiisa
soo dhaawacaan. Hershel ayaan soo dhabeynaya gabadhiisa isaguna waxay bilaabeen inay cunuga qolka geliyaan si ay u badbaadiyaan ay ugu saaraan xabadda. Rick aad buu u naxay wuxuuna moodaa wiilkiisa inuu geeriyooday. Sidaas darteed Hershel wuxuu Rick ka codsanay inuu banaanka sugo ilaa uu ka dhamaanayo qaliinka inkastoo uu yahay dhakhtar xoolaha ah. Haddana wuxuu isku dayay wax walba awood inuu sameeyo si uu u badbaadiyo wiilkan. Markuu jeexo dhaawac kadibna uu kasoo saaro xabadda ayuu la yaabay wuxuuna arkay xabad inay u kala jabtay 3 jab oo yaryar. Taasi waxay sababtay in rasaastu ay soo gudubtay deerada ka hor intaysan ku dhicin Carol. Waxayna sababtay in uu kala jabto 6 qaybood. Si Hershel si uu u soo saaro xabadda wuxuu u baahan yahay agab caafimaad. Qalabkaasina ma yaal guriga sidaas darteedna Otis wuxuu go'aansanay inuu soo baxsoonaado rug caafimaad si uu soo qaado qalabkaasi una keeno xaafadda. Laakiin dhibku weyn ayaa waxay tahay rugtaas waxaa ka buuxaan wada zombie. Markaas Shane wuxuu go'aansanay inuu raaco si uu uga caawiyo hawshaas. Labadooda degdeg ay u baahan si ay u gaaraan goobtaas loona badbaadiyo wiilkan. Rick wuxuu rabaa inuu xaaskiisa u tago una sheego wax walba oo dhacay si uu halkaas u keeno. Laakiin Maggie ay ku kheylinayso oo dhaysa isaga wiilkiisa la joogo aniga u keenay wiilka hooyadiisa. Markaan aad ugu mahadcelinaya Maggie wilibana isagoo u sheegay meesha ay joogaan kooxda si ay u soo wado xaaskiisa. Maggie waxay qaadanaysaa faras beerta taal waxaanu bixis halkaas waxaan la kulmaysaa xubnaha kooxda waxaan u sheegaysaa waxay ku leenaxaysaa waxaan soo raacaysaa Maggie si ay u tagto beerta una hubiso xaaladda wiilkeeda. Waxay go'aansanayaan inay ayagan baabuurta soo qaataan daba socdaan ilaa iyo beerta. Balse Carol way ka diidaysaa inay raacdo wilibanaydoo ku dheesay gabadheeda waqti walba ay soo laaban kartaa. Iyadoo u raacinaysa haddii ay soo laabato aysan meeshan cidna ku arkin way iga dhimanaysaa ama way iga dhumaysaa ay ku dheesay laakiin meesha aniga ayaa joogayeen u raacinaysaa. Maantuna ku qancay hadalkeeda waxayna go'aansanayaan inay soo tagaan habeenkaas ay kaliya meesheeda. Waxaan rajaynayaan in gabadha ay soo laabato si maalinta xigta ay wada tagaan beerta laakiin waxay dirayaan Glenn iyo Andre si ay u aadaan halkaas ugana caawiyaan Rick iyo Lori dhibaatada ay ku jiraan. Labadooda way gaareen halkaas waxaan la kulmayaan Hershel iyo gabadhiisa Glenn aad buu u dhacayaa Maggie waxaan u muuqataa in iyaduna sidoo kale ay la dhacday. Isla waqtigaas Shane iyo Otis waxay gaareen xarunta caafimaadka. Sida ay filayeen halkaas waxay ku arkaan zombie fara badan maadaama aysan awoodin inay la dagaalamaan dhammaan. Waxay go'aansanayaan inay si qarsoodiah u dhex galaan. Wayna ku guuleysanayaan arrintaas waxayna gudaha ka soo qaadanayaan dhammaan qalab ama agab ay u baahan yihiin. Kadib ugu wuxuu qabsanay markay soo baxayaan zombiyadu ay arkaan kadibna ay soo daba cararayaan. Labadooda degdeg ay u cararayaan zombiyadiina ay daba cararayaan. Sidoo kale Otis wuxuu ka dhaawacay lugta dhaqdhaqaaqiisana uu gaabeeyay Shane wuxuu isku dayay inuu caawiyo intii uu karo. Laakiin markuu ogaado in zombiyada labadooda ay qaban doonaan wuxuu go'aansanay inuu badbaadiyo naftiisa. Wuxuu soo saaray bastoolad wuxuuna lugta ka tooganaya Otis si uu dhulka ugu dhaco zombiyadana ay u cunaan. Sidaas ayuu Shane waqti u helay inuu baxsado runtii uu badbaadinayo noloshiisa isagoo ka cararaya goobta. Kadib markii uu horay naftiisa Otis dhankii maskiinka ah wuxuu ku laabanaya guriga wilibana isagoo qalabkii iyo agabkii caafimaad wuxuuna been u sheegaya dadka isagoona ku leh Otis isaga naftiisa u horay wiilkan yar loo badbaadiyo. Maantoodna murugoonaya Otis dartiisa maadaama uu isku dayay inuu badbaadiyo nolosha Carol qofna ma oga dambiga uu galay Shane. Kaasina ka qaadan qalabka waxaana bilaabeen qaliinkii wiliba si degdeg ah. Muddo kadib Hershel ay banaanka soo baxay wilibana isagoo sheegay in lagu guuleystay qaliinka xaalad wiilkan hadda ay degan tahay. Ayagoo idilna ku farxay maadaama badbaadiyo wiilka yar laakiin weli waxaa jirto murugo qofkii ay waayeen. Xaaska Otis oo gabiyaanba murugoonaysa markay maqasho warka Rick iyo Hershel waxay isku dayayaan inay qaboojiyaan qalbigeeda. Markaas wuxuu dareemay dambiyaad culus sidoo kale damirkiisa ayuu canaananaya. Halkaasina waxaa ka muuqanaysa Shane inuu qaldan yahay si nafsi ah. Maalintii xigtay Daryl iyo inta kale kooxda ay imaanayaan beerta. Waxay hubinayaan badqabka Carol waxayna la kulmeen Hershel iyo qoyskiisa. Waxay sameeyeen aaska Otis waxayna la murugoonayaan xaaskiisa oo xaaladeedu aad u adag tahay. Kadib waxay dib ugu soo noqoneen dhibaatadii Sofia waxayna isku dayayaan inay markale raadiyaan. Markaan Hershel iyo gabadhiisa way caawinayaan wilibana ayagoo siinaya qariirada deegaanka si ay u noqoto hawshooda mid dhammaystiran. Walaan mas'uuliyadda ugu weyn qaadaya sababtoo ah kooxda inteeda badan way dhaawaceen kaliya isaga ka fiican kaligiis ayuu baxaya maalinta koowaad. Kadib sidii caadadeed ma helayo waxraad ah train. Waqtigaas Carol, Shane iyo Andre waxay aadeen wadada weyn ayagoo rajaynaya gabadhani halkaas ay tagtay laakiin ayagoon waxba ma soo helayaan. Habeenkii Lori waxay dareemaysaa daal iyo wareer soo noqonaya waxay si qarsoodi ah u sameynaysaa tijaabada uurka. Natiijadana waxay noqonaysaa adigana daawadaha ilaawin muuqaalka ah inaad like noo saarto sidoo kale channelkeena Khafifa Plus subscribe soo dhahdo maadsan. Waxay ogaanaysaa inay leedahay uur arrintaas ayada waxay ku noqonaysaa masiibooyin sababtoo ah uur iyo dhalmo waqtigan oo kale xanuun waaye. Lori way sanacaysaa mana garanaysa markaan wax ay sameeyeen. Halka dhanka kale kooxdan ay si nidaamsan u raadinayaan Sofia ayagoon oo kala bixin koox. Marka laga reebo Daryl kaasoo go'aansaday inuu kaligiis soo raadiyo gabadha oo mas'uuliyad iska qaadanaya faras ka tirsan beerta Hershel wuxuuna dhaqaaqaya dhanka iyo keynta. Markii dambe wuxuu gaaraya meel buur sare ah wuxuuna ku wareegaya hareeraha buurta isagoo rajaynaya halkaas ka arka Sofia. Isagoo jooga buurta ma filaan wuxuu arkayaa mas meesha taagan. Faraskii markuu arko maska uu argagaxaya wuuna istuura wuuna iscilin weynaya. Kaasi Daryl wuxuu luminaya xakameynta faraska. Markaasna uu dhacay waliba si xun uu dhacay xabad guutay jilibka galaysa. Kaasi wuxuu bilaabay inuu dhig baxman awoodin inuu ka dhaqaaqo booskiisa. Kastaba ahaatee wuxuu sameeyay waxyaabo cajiib ah isagoo isku riixaya buurta si uu meeshaas u fuulo. Haddana mar labaad ayuu dhacay sababtoo dhaawiciisa oo darna markaas uu miirbeelaya. Balse intuusan miirbeelin wuxuu arkay walaalkiis Kevin Merle oo ka maqnaa muddo aad u fog. Daryl uu soo toosay wuxuu la kulmay zombie isku dayay inuu cuno agtiisa. Kaasi fursad ku helay inuu meesha
meeshaas ka soo baxo kadibna uu kusoo cararaya isagoona markaas isticmaalaya falaarta ku jirta jirkiisa ugu dilo zombiga markaasuna marka la fuulaya buurta isagoona adkaystay xanuunka ugu dambeyntiin si guul ay uga baxaya meesha kasoo baxa meesha wuxuu go'aansanaya inuu kusoo laabta beerta weliba si degdeg ah maadaama uu yahay dhaawac aad u weyn waqtigaasna Andre ayaa noqonaya qofka ilaalinaya beerta waqtigaasna Andre waxay arkaysaa zombi isu dhawaada beerta waxayna ku dagaysaa kooxda intiisa kale ayadoo adeegsanaysa qoray inkastoo aysan weligeeda isticmaalin waqtigaas rikaas oo muuqana weliba isagoo ka hortagaya sababtoo dhawaaq rasad ay soo jiidi karaan zombies fara badan dhinaca kale ma jirto cid dareemaysa cidan xiriirkooda waxayna bilaabaan inay isjeclaadaan weliba ay qaataan waqti qurux badan laakiin xiriirkooda waxay ka qarinayaan kooxda inteeda kale kadib Maggie waxay go'aansanaysaa inay kasoo tagto ayadoo tagaysa meel kale si ay akhrido waraaqad uu siiyay markii ay akhrido waxay ogaanaysaa inuu ku sugaa meel uu balansaday kaasi eedaad u baqida sidoo kale weyn xanaxaysa taasina waxay ku cadeynaysaa meeshaas inay ku jirta sir aad u weyn isla waqtigaas galeen wuxuu galay foornada si uu halkaas ugu sugo Maggie markii uu soo galo wuxuu arkaa tiro badan oo zombi halkaas ku jira kuwaas oo ku xiran foornada aad inuu nacay wuxuu si degdeg ah uga baxaya meesha isagoon argagaxsan dambe galeen wuxuu la kulmay Maggie si uu u fahmo sababta halkaas uga haystaan zombiyada waxayna ka codsanaysaa arinta inuusan sheegin cid kale isagana wuxuu ballan ku qaaday inuu sharxi doono wax waliba isaga tagay koor intuusan arkin qof oo galeen ku kalsoon yahay haddana kama qarin karo kooxda arintan weyn wuxuu tagay Daryl isagoo ku kalsoon arinta inuu xalin doono iyadoon cid kale loo sheegin wuxuu si toos ah u hadlay Hershel wuxuu sheegay inuu ku arkay foornada zombies fara badan weydiinaya sababta halkaas ugu haysto halka uu ka dili lahaa Hershel wuxuu sharxayaa zombies kanay ahaayeen isagoon u raacana xitaa hadii ay cudur qabaan maaha in la dilo sabab loo dili meesha batal ayuu ku dhaxay ku sii daray muddo dheer inuu aadanaha qabay cudurro fara badan isagoon u raacay dhammaan dadkaas lama dilin kaliya waxa la marsiiyay karantiin la ay ka daalaan isagoona sheegay kaliya inuu sameeyay sidaas oo kale kaliya dadkan wuxuu ku dhaxay marsiinay karantiin Hershel ma uusan ka bixin beerta tan iyo markuu faafay cudurka wuxuu maleeyay inuu yahay cudur caadi ah oo kale wuxuu maleeyay wax walba sidoo hore inuu ku soo laaban doono Daryl wuxuu isku dayay inuu fahamsiyo qofka dumar zombi uu noqdo inuu dib u soo laabanaynin sidoo kale Daryl wuxuu ku adkaysanay zombies ka foornada ku jira inaysan noqon doonin dad iska caadi ah sidoo uu ahaan doono sidoo kale wuxuu raacay kuwa aniga ay haris noogu yihiin laakiin Hershel midaas kameela wuxuu ku sheegay inay ku jiraan meeshaas xaaskiisa iyo wiilkiisa raacnay ma ogolaan doono in loo geesto waxa yeelo xaaskeyga iyo wiilkeyga Hershel uu ku qanacsan yahay xaaskiisa iyo wiilkiisa inay yihiin bini'aadam ama zombi sidoo kale wuxuu ku dhaxay qodob mardhow ayuu soo bixi doona oo soo daahiri doona halkaasina Daryl waxay gelinaysaa rajabeel ma yaqaan qaab ugu farcelin lahaa isla waqtigaas loo riixay tagaysaa Glenn waxayna ka codsanaysaa inuu u keeno daawo qaas ah Glenn iyo Maggie soo baxay waxayna soo aadan farmashiyaha u dhow beerta si ay u soo qaadaan daawooyinka loo baahan yahay kadib Glenn wuxuu daawooyinka u keenay loori balse ma oga wax loo isticmaalo daawooyinkaas waxaana cad daawooyinkaas in loo isticmaalo in lagu soo rido caruurta sidaas darteedna loori waxay rabtaa inay iska soo rido ilmaha ku jira caloosheeda ayadoona ka baqaysa inuu cunug ku dhasho adduunkaasi cabsida badan waxay qabsanaysaa qadar far badan oo daawo ah si ilmaha u soo balse ugu dambeyn go'aankeeda ay kilaabanaysaa daawooyinkan meeshooda ay ku soo celinaysaa wax walbana si dhamaata ay ku dhamaanaan laakiin dhibaato ayaa dhacaysa taasi oo ah loori waxay ilowday inay qariso sanduuqa daawada Rick silma filaana ku arkay daawada isagoo ogaanay wax waliba ku xanaaqay uu la murmaya sababtoo waxa soo dhan ay ka qarisay sidoo kale waxay go'aansatay inay iska soo rido ilmaha iyadoo aan waxba u sheegin markaas loori waxay isku dayaysaa inay dejiso waxayna u sheegaysaa inay ka laabatay go'aanka ilma ridis sidoo kale loori waxay go'aansanaysaa inay saxda qaladkeeda iyo dhammaan waxyaabaha kale ee isaga ka qarinaysay inay u sheegto waxayna u qiranaysaa in markii cudurku faafay oo ay umaleynaysa inuu dhintay isla markaasna xiriir la yeelatay markaas waxay ku codsanaysaa inuu cafiyo ayada ama inuu cafiyo Shane sababtoo ah labadoodu ma aysan ogeyn weli inuu nool yahay sheegaysaa in ilma calool ku jira uu isaga leeyahay uusan lahayn Shane isla markaana ay kala tageen eedii Shane tan iyo markuu isaga soo laabtay wuxuu maqlay arintaasi oo idil weliba isagoo naxsan mana garanay wax uu ku jawaabo ugu dambeyn wuxuu ku qasbanaanayaa inuu iska cafiyo ama inuu isku ilaawo wixii dhacay sababtan waa wiilkooda Carol dartiisa maalinta xigtay dhammaantood wada fadhiisan oo wada sheekaysanayaan markaas oo galeen wuxuu sheegay arinta zombies ku jirta cirada ma uusan awoodin inuu sirta si qariyo sababtoo ah noloshooda ay khatar galaysa markii uu sheegay dhammaantood degdeg ay ugu ordayaan xariyaha si ay u hubiyaan hadalkiisa waxayna halkaas ku arkaan tiro far badan oo zombi ah dhammaantoodna way walbalayaan Shane wuxuu go'aansanay inuu furo xariyaha kadibna uu dilo dhammaan zombies halkaas ku jira laakiin Rick uu ka diiday wuxuu sheegay in beerta ku yihiin kaliya marti isagoona uu raacanaya kaliya haddii aan sameeyno khalad yar in beerta nagala saari doono wax keer waliba hal daqiiqo sidoo kale wuxuu ku dhahay diin la eri wax dib ugu laabanay nolosheeni khatarta badan sidoo kale ordka Rick wuxuu go'aansanay inuu la hadlo Hershel si uu u fahmo sababta uu zombies ku haysto Hershel inuu tagay Hershel si uu la hadlo balse Hershel arintaas gabi ahaan bil laga hadlo diiday isla markaas wuxuu ka codsanay asiga kooxdiisu inay ka tagaan beertaas Rick wuxuu sheegay banaanka inay tahay meel aad u khatar bar dumar meeshan uu ka diran wuxuu sheegay inuu ku xukumay dil toogasho markaas wuxuu ka codsanay inay meeshii joogaan waliba isagoo oo kale ku ogolaan doono kadibna uu soo tagay si uu isaga waqti u siiyo uu u fakaro markaas dhammaantood waxay isku diyaariyaan inay baxaan markaas Maggie soo carraysa inuu tagay saabaheeda waxaanu ka codsanaysaa inuu bedelo go'aankiisa wayna barbaraysaa dheer kadib Hershel wuxuu bilaabay inuu aqbalo arintaas gabadhiisa markaas Rick uu imaanay wuxuu ku dhahay adiga kooxda beerta iska joogi kartaan waa caadi laakiin wuxuu ku xiriyaa shuruud ah inaysan xayaalo u geysan zombies ku jira xiriyaha dhibaatada kala jirta waxay tahay laba kamid zombies ku jira xiriyaha ayaa baxsadeen sidoo kalena Rick waxa lagu dhahay waa inaad soo celisaa labadaas zombies inuu ku khasbanaanay inuu aqbalo shuruudaasi u badbaadiyo kooxdiisa kaas ay soo
raacayaan isaga Hershel si ay ugu soo celiyaan zombiska xeryaha. Waqtigaasina Shane wuxuu isku keenayaa dhammaan kooxda wuxuuna bilaabayaa inuu ku kiciyo Hershel iyo xeryaha isagoona uu sheegay in xeryahaas ay khatar ku yihiin noloshooda. Sidoo kale wuxuu sheegay inay qasabtay inay qaadaan tallaabo ay dilaan dhammaan zombiska ku jira. Ogolaado Hershel amiisan ogolaan waxba inagama gelin ayuu ku dhahayaa. Markale adigana daawada ha ilaawin muuqaalka ah inaad like noo saarto. Sidoo kale channelkeena Khafifo Plus subscribe soo dhacdo. Maxay uu qaybinayo dhammaan xubnaha kooxda si ay u furaan xeryaha kadibna ay u dilaan zombiska. Waqtigaasina Ricky iyo Hershel waxay gaareen meesha ka baxsadeen zombiska ayagoona isku dayaya inay dib u soo celiyaan zombiska. Shane wuxuu ku faa'iideysanaya fursadaas wuxuuna bilaabayaa inuu u sheego xubnaha kooxda inuu Hershel uu waalan yahay oo sabab u noqon doono dhimashadooda dhammaantoodna isagoo ku qancinaya inay isaga taageeraan. Markaas ayuu Shane soo baxaya si uu u furo xeryaha wuxuuna ka sii daynayaa dhammaan zombiska kadibna wuxuu bilaabayaa inuu mid u dilo. Dhammaan xubnaha kooxdan waxay ku qasbanaanayaan inay caawiyaan Shane intaysan soo gaarin zombiska. Waxayna ku guuleysanayaan inay dilaan dhammaan zombiska ku jira xeryaha iyagoona uu kaliya ka soo haraya hal zombi. Layaabka ugu weyn ayaa waxay tahay in zombigii ugu dambeeyay ay noqonayso Sophia gabadha Carol oo nasiib dar noqotay zombi. Arrintan waxay noqonaysaa naxdin weyn oo qof walba ay yaabinayso ilaa ka istaagan dhammaantood. Carol si buuxda ay u qalbi jabaysaa waxayna isku dayaysaa gabadheeda dhankeeda inay soo cararto walibana iyadoo rabta inay taabato laakiin waa la qabanaya oo looma ogolaanayo. Qofna ma uusan rumaysan waxa dhacay cidna ma awoodi karto inay rasaasto gabadhaasi. Markaas Rick wuxuu qaadanayaa go'aan adag oo uu ku dilo gabadha walibana isagoo dareemaya dambi culus. Markaanina waa markii ugu xumeed uguna adkeyd noloshii Carol waxayna ka tagaysaa meesha iyadoo aad u murugaysan. Hershel uu naxsan yahay markaan wax uu ku hadlana ma yaqaan. Markaas waxay qabanayaan aaska Sophia ay dadka kale ku jiray xeryaha waxaana murug weyn ka muuqanaysa meesha. Markii la gaaro maalinta xigta Hershel isku soo baxaya beerta cidna ma garanayso halka uu aaday sababta uu tagay. Markaas ay Maggie waxay sheegaysaa aabeed markuu murugaysan markuu xanaaqsan yahay inuu jecel yahay inuu kaligiis meel iska aado. Sidaas darteedna waxay dhahaysaa waxaan u maleynayaa aabeeg inuu xanaaqsan oo kaligiis meel uu joogo saacad. Isla markiiba wuxuu go'aansan inuu baxo si uu u keeno Hershel. Galin waxa isku soo diyaarinay inay soo aadaan magaalada. Rick meesto waxa uu baa sidaas darteedna Galin ayaa doonay inuu raaco Rickna wuu ogolaanaya. Markaas waxay soo gaareen hotel ku yaal magaalada. Markaas ay keeneen Hershel oo niyad jabsan walibana isagoo cabaya qaabay rajeynay xaaskiisa wiilkiisa ku jiray xeradaas inay dib u soo laaban doonaan balse niyada ay laga jibiyay markaan. Rick Galin waxay isku dayayaan inay dejiyaan oo taageeraan Hershel. Isaga ay la joogaan si isaga u badbaadiyaan. Markaas ka soo bixin hotelka waxa ku hormaanaysa laba qof oo soo galaysa hotelka. Waxa uu dhaqmaa sida caadi ah laakiin Rick uu ka shakinaya sababtoo ah waa burcad. Shakigiisu waa basax labada qof waxay ku hadlayaan codaan jaban dalbanayaan in la siiyo hubkii alaabaha ay wataan. Loo diidana mid kamid ah wuxuu soo bandhigaya hubkiisa kortaga oo labadoodba uu garaacaya. Markaas dhibaatada jirta waxay kaliya meeshan in laba qof ay koox weyn ay baahan banaan ku sugayaan. Kooxdooda maqlaan rasaasta waxay soo cararaan dhanka hotelka waliban ay la dagaalamaya Rick Galin iyo Hershel. Zombiyadii aan ku soo cararaya sababtoo codka rasaasta oo aad u dheer awgeed. Labadii burcadna way cararayaan laakiin mid kamid ah ayaa markaas dhaawacmaya laakiin Rick uu badbaadinaya. Isaga Galin iyo Hershel ayaan soo qaaday waxayna keenaan keentooda. Wiilkan ay soo badbaadiyeen magaciisa waxa lagu magacaabaa Randall. Hershel ayaa daneynaya daaweynaya kadibna hubinaya caafimaadkiisa. Maanta waxay go'aansanayaan waxay ku sameyn lahayn laakiin isaga wuxuu ku dhahay in caafimaad oo idinka tagay. Hershel ayaan diiday hadalkaasi wuxuuna ku dhahay ninkan haddii meeshan la wada halkaas la geeyo weyn soo weerari kala weyn diri karaan. Isaga iyo kooxdiisa ninkna wuxuu sharaxayaa Randall inay niis xirnaa intii lagu jiray safarka. Darteed waxay ku dhahan ma ogaan karo meeshan halka ay tahay ayuu ku dhahay. Dambeyntiin waxay go'aansanayaan Randall inuu la joogo intuu ka caafimaadayo. Kadib Lori waxay sheegaysaa inuu yeeshay dabeecad qalafsan taasi oo carqalad ku ah qoyskooda iyo kooxda. Sidoo kale waxay dareemaysaa inuu halis ka yahay qoyskeeda iyo kooxda oo dhan waxayna isku dayaysaa inay xakamayso xaaladiisa sida ugu macquulsan. Shane wuxuu ahaa saaxiibkii ugu dhawaa Rick waqtigii hore. Kadib Randall uu soo kabsanaya dhaawac. Rick indhaha uu ku xirayaa si uu u geeyo meel ka fog beerta sidii hore loo qorsheeyay. Uu raacaya markaan intay jidka ku jireen Rick uu joojinaya gaariga. Markaas ay wuxuu la hadlayaa Shane. Rick wuxuu ugu digayaa Shane inuu gabi ahaanba ka fogaado Lori iyo Carol. Sidoo kale wuxuu sheegay haddii uu mar kale isku dayo inuu dhibaateeyo Lori oo uusan arki doonin saaxiib ee uu dhaqmi doono sida cadowgiisa oo kale. Sii wadanaan safarkooda ilaa ay gaaraan dugsi cidla ah oo kaliya meel ku yaal. Go'aansanayaan Randall inay kaga tagaan halkaas. Randall uu bari wuxuu sheegay in hore u yaqaanay Maggie iyo aabaheedaba. Maggie jaamacad la soo barteen ka hor faafitaanka cudurka. Arrintaas Rick Galin waxay ku noqonaysaa lama filaan sababtoo ah taasi waxay ka dhigan tahay inuu garanayo Hershel iyo beertiisa. Wuxuu keeni karaa saaxiibadiisa si ay ugu argutaan. Wuxuu go'aansanay inuu dib u soo noqdo beerta isla markaasna laga arinsado wax laga yeelay. Laakiin Shane uu diiday wuxuuna soo baxnay pistoolad waliba isagoo go'aansanay inuu dilo Randall. Shane wuxuu isku dayay inuu dilo Randall balse Rick ka qabanaya. Wuxuuna badbaadinaya Randall waliba daqiiqadii ugu dambeeyay. Markaan Rick iyo Shane is qabsanayeen wayna isgaraacayaan mid walban wuxuu soo saaraya wixii qalbigiisa ku dhayna koox weyn oo zombie soo weeraraysa kadib markay maqlaan rasaastii. Mid walban wuxuu cararaya dhinaca Shane wuxuu iska qarinayaa zombiyadiina ay ku hareereysmayaan. Furaya Randall walibana wuxuu isaga oo kaxaynaya meesha uu soo socday. Shane wuxuu maleynaya inay isaga ka tageen kadibna ay soo baxeen balse daqiiqadii ugu dambeysay ay labadooda dib ugu soo laabanayaan gaariga. Rick iyo Shane waxay Randall dib ugu soo celinayaan beerta. Isku imaanayaan waxayna ka doodaan wixii laga yeelaa maadaama uu ogaaday goobta ay joogaan. Dhammaantood waxay xal u arkaan aragtida Shane ayagoona xal u arkaan in la
riik markii hore uu diiday haddana ugu dambeyn uu ogolaanaya ma uusan hayn xal kale kama iman fikradaas marka laga reebo Dale kaas oo isku dayay inuu ku qanaco inay bedelaan go'aankooda waxay siinayaan fursad laakiin nasiib darro qofna ma rumaysanin Sadel markaas waxay gaaraan go'aanka madambeysa taas waa in la dilo Randall ninkii riik shan iyo Daryl ay Randall u kaxeenay xirxoolaadkiisa halkaas ugu markaan riik wuxuu soo saaraya bistoolad briqsiga ka hor intuusan tooganayo meesha ku arkay wiilkiisa uu taagan kadibna uu naxay markaan wuxuu dareemay wiilkiisa inuu noqdo qof qalasan wax xariis aan lahayn maadaama uu doonayo inuu daawado Randall isagoo dhiman taas oo ka dhalatay go'aamadii waxyaabaha carruurtooda ku sameeyay sidaas darteed riik wuxuu go'aansanay inuu cafiyo nolosha Randall kuna haayo xabsi ilaa amar dambe waqtigaasina Dale wuxuu tagay keligii meel ka fog beerta isagoo halkaas ku socsoconaya walibana wuxuu ka murugaysan yahay dilka loo geysan doono Randall si lama filaan ah isagana waxa soo weeraraya zombie riik kuwa kalena waxay maqleen qiiladiisa markaas ay degdeg ugu soo cararayaan si ay isagu caawiyaan balse markay yimaadaan waxay ogaanayaan in arintaasi waxay noqonaysaa naxdin kale oo weyn waxay sameeyaan ma yaqaanaan intii xigteen waxay sameeyaan aas qofna ma rumaysna waxay maantoodna waxay ka murugoonayaan ka tigitaankiisa maalintaasi dhamaanaysa riik kooxdiis kalena waxay isku diyaarinayaan jiilaalka waxay diyaarsanayaan dhamaan agabkeedooda sababtoo ah jiilaalka banaanka in la baxo aad ay u adag tahay laakiin isla waqtigaas Shane wuxuu maskaxdiisa ku hay arin kale taasi waa gabi ahaan in laga taqaluso Randall Shane markaan wuxuu ku faa'iideysanay mashquulka dadka oo ka howlan jiilaalka diyaarinteeda wuxuu Randall ka soo kaxaysanaya beerta isagoo aan cidna arkin kadibna wuxuu ka jibinaya qoorsiga dhaawac isku geysanaya kadibna soo laabanaya dadkan wuxuu sheegay Randall inuu isaga dhaawacay kadibna sida ku baxsaday kii kuwa kalena way rumaysanay hadalkiisa waxayna go'aansanayaan inay baxaan oo raadiyaan Randall maadaama uu isaga khatar ku yahay laakiin kooxdooda ay abaabulaan waxayna ka raadinayaan keenta Shane wuxuu la baxayaa Ricky kooxdiisa Daryl wuxuu la baxayaa kooxdiisa kadib Glenn iyo Daryl waxay helayaan Randall laakiin wuxuu noqday zombie markaas waxay qasab ku noqonaysaa inay markaas waxay baaraan midkiisa waxayna kawaanay raad qaniinyo ah markaas ay dareemeen qofna qorta ka jibiyay sidaasna uu ku fahmayaan waxa dhacay ilaa ka arkaan geedkii Shane uu isku dhufanay sidaas ayay ku arkaan dhig saaran geedkaas ay tigtiga oo fahmayaan waxay bilaabaan inay dabagalaan waliba waqtigaas Shane wuxuu Rick u jeedanayaa meel markaas inuu bastooladi soo baxsanay wuxuu sheegay isaga inuu yahay qof daciif ah oo sidaas qasab ku tahay wuxuu kale oo sheegay mar inay ahaayeen saaxiibo balse hadda ay xaaladdu isbedeshay badbaadana jirta kan ugu xoog wuxuu kale ku dhahay adiga ma awoodidna ilaaliso Lori Carol wuxuu ku dhahay naftaada ma difaaci kartid markuu Shane isku diyaariyay inuu toogto laakiin Rick wuxuu sheegay isaga inuusan diyaar ahayn inuu la dagaalamo maadaama uu ahaa walaalkiisii saaxiibkiisii iyo wehelkiisa markaan Rick wuxuu bastooladiisa u dhiibanayaa Shane ugu muujiyay inuusan rabin dagaal markii uu Shane soo dhawaado si uu qaad bastoolada Rick silma filaanayo mid uu gelinaya saaxiibkiisa ku dhimanaya Mr. Shane wuxuu ku qasbanaaday inuu dilo sababtoo doorasho kale meesha ma bataalo Rick aad buu qeelanay wuxuu Shane ku eedeynaya inuu sabab u yahay xanuunka maanta uu dareemayo isaga Rick oona silma filaana meesha xaba ka soo muuqanaya wiilkiisana wax walba uu sameynaya aabii uu arkay indhaha ka daawanayay wuu daba socday uu naxsan yahay maran rumaysan kara aabii inuu dilo meedka markaas uu soo baxsanaya bastoolada isla markaas bastoolada wuxuu ku taagay aabii isagoona ku dhahay maxaad u dishay Shane markaas Rick isaga wuxuu isku dayay inuu sharxo wiilkiisa haduu isaga iska dayn lahaa in isaga la dili lahaa hadla Shane wuxuu isku bedelay zombie wuxuu soo weeraraya wuxuu tooganaya Shane wuuna dilay sidaasna ayuu ku badbaadinaya aabii taasina waxay noqonaysaa mid aad u adag ku xanuun badan isaga wiilkiisa uu Shane aad ugu dhawaan labadooda siib daro Shane wax doorasho kale ma uusan u reebin labadooda markaas waxay ogaadeen dhamaan dadkii aan waxba laga reebin oo ku dhacay cudurka qofka haduu dhinta si caadi ah isku bedelaya zombie Rick wuxuu soo qaadanay wiilkiisa si ay ugu laabtaan beerta laakiin markay gudaha soo galeen waxay arkaan koox far badan oo zombie ah kuwaasi oo soo galayaan beerta kooxdan waxay ka dhaween meesha ayaga joogeen markay maqlayeen rasaas waxaana degdeg ah u dhaqaaqayaan beerta tiridoon aad bay u fara badan tahay sidaas darteedna ma awoodaan inay la dagaalamaan wuxuu xaaskiisa wiilkiisa gelinaya gudaha waxaan isku dhumaaleysiinayaan howlka kamid ah zombiska way soo dabagalaan weyn hareereenayaan kaas kooxdu waxay soo gaaraan goobta waxayna ku dagaalamaan baabuurtooda laakiin dhibaatada jirta waxay tahay rasaas aad ay u maqlayaan meesha ka soo bixiso meesha idil waxay noqonaysaa wada zoombi markaan xaal kale uma soo harin kaliya oo ah inay meesha ka xararaan dambeyn iskala qaybinayaan qof walba wuxuu raacayaa baabuur gooni ah qayb ay iskala qaybinayaan beertiina sidaas ay bagabi ahaanba ku barbar halka Hershel uusan doonin inuu ka tago beertiisa dib ayuu soo laabanaya si uu u qanciyo Hershel ayaga soo raac ujeedadiisana ay tahay gabadhiisa si uu u badbaadsado markay soo baxaan soon raacana habiga gaarigooda isla markii bajawaya waxaanu ku qasbanaanaa inay wadada ka leexdaan si ay u dayactirtaan gaarigooda intii gaariga la sameeyay Rick Lori wuxuu sheegay wixii ka dhacay isaga iyo Shane Lori wani jabees oo aad ay ugu xumaanaysaa Rick wayna diidaysaa inay hala hadasho sidoo kalena way ka soo tagaysaa darteedna Rick wuxuu ogaanay Lori inay jeceshahay Shane isaga aysan jeclayn tan iyo markaasiba Rick uu nacaya Lori oo wuxuu dhaqmay sidoo hore u dhaqmi jirin oo kala gaarabeenkiin dhamaan isku imaanay waxay ku hadlaan halkii loo bixi markaas waxay ogaaneen meeshaas inuu ku dhaw yahay xabsi waxaan dhahay meeshaas ayaan galeynaa wuxuu dareemay dhaawac baabuurku u ahaa calaamad wuxuu go'aansanay inuu isku dayo fursadooda xabsiga taasoo calaamad u ah dhamaad ka season ama qaybta labaad ee taxanaheena